السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك ولا شرف طبضا مالكستو كاد كجوكتان فرحدي عافيمات تاما iyo nolol wanaagsan baan idin rajaynayaa. muuqaalka waxaynu kaga hadli doonaa haweenka suxuur ugu sameeya odayaasha iyo ragga qaba nafaqadan muuqaalka inoo saaran. nafaqadan bulsho ahaan waxaynu u naqaanaa codkac ama muqmad. waa laga yaabaa dadka qaarna inay magacyo kale ugu yeedhaan. inta badan waxay caan ku ahayd in lagu quraacdo dadku marka ay guursadaan in inta badan ragga la siiyo, sidoo kale in la isku nafaqeeyo. waxa laga jaraa hilibkan geela, hilibkiisa ayaa laga gooyaa codkaca. waa laga yaabaa in xayawaanada kale ee sida looda iyo adhigana laga jaro, laakiin waxay u badan tahay geela. waa nafaqo aada u fiican oo tayada jidheed ay siisaana ay aada u badan tahay, waana borotiin wanaagsan oo jidhka tamareeya. laakiin in lagu suxuurto bisha barakaysan ee ramadaan kadibna qofku uu iskaga ilaaliyo nafaqa daro ku dhacda maalintii, awoodiisa jidheed oo daciifta, iyo in markaas maalintii uu si fiican iskaga xejiyo soonka, ayay dad badani ay qaabkan u sameeyaan. haweenkuna raggooda ay ugu nafaqeeyaan si markaa ninka awoodiisu aanay dabac u samaynin. marka laga hadlayo nafaqadan, waxa ugu weyn ay xambaarsan tahay waa borotiin. borotiinkana haddii qofku uu ku suxuurto habeenkii oo maalintii markaa uu ku soomo, waxa laga dhexlaa haraad badan. oo borotiinka hilibka sida iminka odkacan hilibkan odkacoo kale haddii dadku ay cunaan ay ku suxuurtaan maalintii, waxa uu u baahan yahay ama qofku waxa uu u baahnaanayaa biyo. waanu haraadayaa oo haraad fara badan buu isku arkayaa. markaa dhakhaatiirtu ma soo jeediyaan ama recommendation ahaan uguma soo bandhigaan dadku inay isticmaalaan borotiinka, gaar ahaan inay ku suxuurtaan. sababta inta badan arrintaa looga digaana waxay tahay qofku inuu aada u haraado, oo in yaroo borotiin haddii aada isticmaasho waxaad u baahanaysaa biyo badan. maalintii oo dhanna qofku waa sooman yahay, oo xataa isagaa borotiin badan isticmaalin buu qofku maalintii oomayaa oo uu haraadayaa. haddii borotiin uu sii isticmaalana haraadku wuu sii badanayaa. laakiin habeenkii iftaarka kadib ama afurka kadib haddii dadku ay isticmaalaan oo nafaqadan ay qaataan, wax u diidayaa ma jirto, si marka awoodda jidhka ay ugu ilaaliyaan oo borotiinkan ama markaa odkaca ay qaataan. laakiin mar kasta waxaa laga digaa bisha barakaysan ee ramadaan in qofku dux fara badan ama saliid badan ama subag badan uu ku xilliga iftaarka ama afurka uu ku bilaabo cuntada. oo subaga badan ama saliidda badani waxay keentaa in markaa qofka waxa uu ugu sahlanaya ay ku abuurtaa ay noqoto inuu yalaalugo iyo laqanyo uu iska dareemo, iyo sidoo kale in madax xanuun uu dareemo, iyo sidoo kale jidhkiisu inuu markaas u subag badan qaato. taana waa laga digaa. laakiin haddii marka ay qalalan tahay ama aanay dux badan lahayn oo qofku xilliga habeenkii nafaqadan uu qaato, awoodiisu way ku fiicnaanaysaa, nafaqo fiicanna uu ka helayaa, tamartiisa jidheedna way ku wanaagsanaanaysaa, borotiin fiicanna jidhkii waa uu ku dhacayaa. markaa habeenkii oo kale waa loo soo bandhigaa ama uu isticmaali karaa qofku. dhinaca kale bishan barakaysan ee ramadaan, qofku xilliga habeenkii inuu iska warhayo iftaarka marka la gaadho ilaa inta suxuurta la gaadhayo, oo waxa nafaqada leh jidhkiisa uu la ogaado waa loo baahan yahay, si maalintii marka uu sooman yahay ay tamartiisu u wanaagsanaato, awoodiisu u fiicnaato, isla markaana caafimaadkiisu u wanaagsanaado, oo soonkii markaas uu si fiican u soomo. intaasaan kusoo ururinayaa. farxad iyo caafimaad taama ayaan idin rajaynayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.